قدومي شريف الشيخ حسن، وزير عبد الرحمن عبد الشكور، وزير عود iyo xildhibaanada labada aqal ee joogta madaxda sharafta leh iyo saraakiisha culimaadudiinka iyo haweenka intaba intaas kadib sida ogtihiin dalkeena wuxuu ku jira xaalad adag oo dalka iyo dadka iyo diinta looga difaacayo argagixisada daacish iyo al-shabaab ummadda Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan siyaasiyiinta meeshan fadhiya waxay ugu baaqayaan inay ka qayb qaataan la dagaalanka cadawga loo midoobo in dalka laga sifeeyo argagixisada sida ay Soomaaliya horumar iyo barwaaqo iyo midnimo ku gaari lahayd intaas kadib dawladda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay dagaalkaas argagixisada ay kula jirto sii wado sii qurxiso markii cadawga la dagaalayo maalkaaga iyo xiskaaga iyo muruqaaga la kulmiyaa inta ay sameysay way wanaagsan tahay in badan oo ka dhiman dadkii la sameeyay meeshaan ay fadhiyaan waxaan ugu baaqaynaa in ay googasha ay fidiso ay ka rumayso ballaariso hawsha la qabanayo dadka oo xal wal aqdiga ah oo meeshaan fadhiyo madaxda ahna waxaan ka codsanaynaa ayagana sidii waagii horeba noloshooda iyo taariikhdooda lagu yaqaanay inay naf iyo maal ku bixiyaan midnimada Soomaaliya isu keenista iyo wada shaqaynta insha Allah taala xafladeena intaas aan ku soo gabagabaysanaynaa waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.